سلام الله عليكم soo dhawaada akhyaarey falanqaynteennan waxaanu ku lafaguraynaa xaaladda faraha kasii baxaysa ee magaalada Los Angeles ee gobolka California dalka Mareykanka iyada oo sida aad la socoteen halkaan mudaharaadyo rabshado wata oo la xiriira dadka soo galootiga ah oo Trump doonaya inuu ka tarxiilo dalka Mareykanka ay ka socdaan magaaladaas Trump oo amray magaalada in la geliyo ilaa 2,000 oo ciidamada ilaalada qaranka ah sidoo kale wasiirka difaaca dalka Mareykanka Pete Hegseth ninka la yiraahdo oo isna ku dhawaaqay inuu magaalada gelin doono ciidamada Mariniska hadii loo baahdo marka xaaladdu farahay ka sii baxaysaa saacadda ka dambaysa way ka sii daraysaa khatar bayna magaaladaas ku jirta in xaaladdu faraha ka baxdo oo arinku cunfi isu bedelo ama gacan ka hadaba waa socda cunfigu laakiin mid inta ka badan inuu meesha ka dhaco ayaa laga cabsi qaba qaabka markaynu u taxliilinayna ama u lafagurayna arrinkan waxa weeye magaaladan la yiraahdo Los Angeles iyo guud ahaan gobolka California horta taariikh waxay leedahay soo jireena waan isleeyahay dad badan lama socdaan dadkan hadda la tarxiilayo oo dadka Hispaniga ah waxay aaminsan yihiin gobolkan la yiraahdo California iyo gobollo kale oo aan ka hadli doono oo dalka Mareykanka in dhul iyagu ay u leeyihiin laga boobayo taariikh hore laga dhacay inay yihiin dadka gaar ahaan dadka reer Mexico ay aaminsan yihiin marka arrinka khatarta u yeelaya isku dhacan ama hadda mudaharaadyada rabshadaha wata magaalada ka socda waxa weeye in arrinku isu bedelo dagaal xagga isirka ah oo u dhaxeeya dadka Laatinada ah gaar ahaan dadka ka soo jeeda Mexico oo dalkan inay iyagu leeyihiin aaminsan iyo dadka cadaanka ah Mareykanka iyo dowladda Mareykanka iyo dadka cadaanka hadda sida muuqata ay hogaaminayaan oo Trump iyo kooxdiisa xag jirka marka dagaalku waxa khatar u leeyahay halka dagaal ka dhaco wuxuu isu bedeli karaa dagaal isir xaaladuna faray ka bixi karta oo arrinkana kuma koobna kaliya macnaha dad soo galootiye kaliya wuu ka gunfog yahay wey arrin ka guda weyn weeye arrinka la xiriira maxay dib idin leeyahay dadka soo galootiga la tarxiilayo waxaan ka hadli doonaa sidoo kale magaalooyinka kale oo iyagana khatarta ugu jira in Trump uu weeraro sida gobolka Minnesota magaalada Minneapolis dadka Soomaalida ay ku badan yihiin waan ka hadli doonaa New York Chicago magaalooyinka ay ku xoogan yihiin ama saldhigga u ah ururka dimuqraadiga ama xisbiga dimuqraadiga dalka Mareykanka ay ku xoogan yihiin iyo dadka garabka bidix oo progressive la yiraahdo khatar bay waxay ugu jiraan in Trump weeraro marka iyadana waa ka hadli doonaa horta saa la socotaan saddexdii beri ee ugu dambeeyay waxa magaalada Los Angeles xaafado kamida ka socday mudaharaadyo rabshado wata oo bilowday kadib markii Trump uu u diray magaaladaas xaafadaha ay ku badan yihiin dadka Laatinada ah ama Mexico ka soo jeeda inay ama Hispanic la yiraahdo in dadka sharci darrada ku jooga la soo qabto oo u diray hay'adda la yiraahdo ICE oo maxayday hay'ad u qaabilsan maxayday dalka Mareykanka dadka soo galootiga marka ciidamada ICE ayaa loo diray dad fara badan oo hadiiba idin leeyahay magaalada muddo ku noolaa kuwa ku dhashay oo aan documenti lahayn undocumented dadka la yiraahdo aan sharciga lahayn ayaa la qabqabtay mushkiladda marka jirta waxa weeye dadka la qabanayo oo Mexicaanka u badan iyo Laatinada waxa laga yaabaa inay dalkaba inay ku dhasheen ayaa laga yaabaa waa qodob qaarkood waa dad 30 sano 40 sano joogay oo shaqaale oo gaar ahaan beeraha ay ka shaqeeyaan marka dhaqaalaha gobolkaaba ku tiirsanba marka dad filanayay ama la filayay in dalka laga tarxiilo ma aha Soomaalida way ka duwan yihiin aad bay uga duwan yihiin
dadkan marka waxa weeye famiilka waxa laga yaabaa caa'ilooyinka ama qoysaskaba in qaar ka midi ay yihiin undocumented oo maxay leeyahay hadiiba eeba idin leeyahay aana sharci haysan qaarna sharci haystaan marka waxay noqonaysaa qoysaskii in la burburiyo oo qaarna la tarxiilo qaarna la reebo nin iyo xaaskiisii nin iyo caruurtiisii nin iyo maxay leeyahay hadiiba ku ran yahay gabar iyo ninkeedii ayaa la kala tarxiilayaa weeye oo mushkilad weynu xagga ah ayaa meesha ka jirta marka dadkii mudaharaad ayay bilaabeen iyagoo arrinkaa diidan ayay mudaharaad bilaabeen kuwii mudaharaadka bilaabana waa la xirxiray iyagana gacanka hadal baa dhacay cunfi baa dhacay waxa weeye rasaas nool baa laysu adeegsaday meelaha qaar dadku waa hubaysan yahay taageeraa la gubay adigu hadda kole dhaawacyaa jira laakiin dhimasho hadda ilaa hadda kole wararkii ugu dambeeyey wax dhimasho ma aanan maqan laakiin waa jiri karaan iyaguna saacadaha hadda soo socda waxaa laga yaabaa inay soo dhacaan warar la xiriira dhimasho inay meesha ka dhacdo magaaladii gaar ahaan xaafadda la yiraahdo Paramount oo dadka Hisbaaniga ay ku badan yihiin xaaladiiba farahay ka baxday waxa weeye qalalaase aad iyo aad u sareeya ayaa meesha ka socda wey arrinkaas markuu dhacay Trump wuxuu dalbaday ciidamada la yiraahdo ilaalada qaranka oo militariga raacsan ciidamada military aanu tababaran wey ilaalada qaranka la yiraahdo National Guard ciidanka la yiraahdo ayuu ku amray inay magaalada 2,000 galaan oo wuxuu markaa isagu leeyahay booliskii iyo hay'adihii kale oo fulinta sharciga waxa weeye way xakameyn kari waayeen wey suu sheegay markaa bay ka dhiganta macnaha booliskii wuu la macaamili kari waayey iyo FBI iyo way ka tan weyn tahay arrinkan wey ciidankii militariga ahaa ayuu meesha geliyey barasaabka gobolka California ninka la yiraahdo Gavin Newsom uu ka soo horjeestay islaanta iyaduna ka ah magaalada Los Angeles maayarka way ka soo horjeestay iyaduna hayeeshee dee xaaladii heer federaal buu la wareegay heer federaal ahaan buu la wareegay oo ciidamada militariga ayuu meesha gelinayaa wey sidoo kale wasiirka difaaca oo nina Trump dadka aadka u taageersana oo maxay nin controversial oo maxay dadkan lagu muransan yahay isna wuxuu sheegay in haddii loo baahdo ciidamada Marines-kana la gelinayo magaalada si looga hortago kooxa iyagu ku sheegayaan qaswadayaal bay u bixiyeen waxa laga yaabaa marar inay waxa soo socota haday rabaan waxay u bixin karaan argagixis mararka soo socda inay ku shaawadayaan waa dhici karta say markaas dagaal ula geli karaan toosaba marka xaaladdu farahay ka sii bixaysa xaaladan marka arrinka xiisa u yeelaya waxa weeye anigu arrinka aan qodobka aan doonayo halkan inaan idinkala wadaaga waxa weeye magaaladan Los Angeles dadka Hisbaaniga ah ama dadka Laatinada ah waxay aaminsan yihiin magaalo iyagu ay leeyihiin horena u lahaayeen laakiin laga boobay oo laga dhacay oo Mareykanka cadaanka ay ka dhacay taariikhda dib marka uu noqdo Los Angeles way iska maqashay Los Angeles xagee ka timid yaa leh asal ahaan yaa magaaladani waa magaalo ay leeyihiin dadka Hisbaaniga ah gaar ahaan Mexicaanka ayaa leh magaalada asalkeedii marka dib loogu noqdo hadda Mareykanka ka tirsan Soomaa asalkeedii dib ugu noqdo sidee bay gacanta ugu soo gashay dalka Mareykanka waan ka hadli doonaa marka dadkan Mexicaanka oo hadda la leeyahay hala tarxiilo waxay aaminsan yihiin dhulkii iyagu ay lahaayeen oo awoowayaashood ay u qabteen inay hadiiba eeba idin laga tarxiilayo xoog loogu sheeganayo oo dadka cadaanka ah ka tarxiilayo bay u haystaan arrinkii waxa sii murginaya xaalka waa arrinka wey daw fiirso dhulkan Mareykanka iyo qaaradan qaaradahan labadan qaaradood oo Latin America iyo North America waxaan ognahay sida barnaamij waxa markii horeeto dadka reer Yurubka ama Hisbaaniga ahaadeen ama dadka cadaanka ah oo Anglo-Saxonka u badan ha ahaadeen waxa waxay ka qabsadeen dadkii reer Indianiska la oran jiray bay ka qabsadeen iyagu ma lahayn laakiin ugu kala horeeyeen oo meesha la yiraahdo California waxay ka tirsanaan jirtay markii horena Spain boqortooyada Spain dhulka xukumin jirtay taariikhii hore baan ka hadlaynaa 1500 iyo 1400 baa laga hadlayaa
markii dambena waxay ka tirsanaan jirtay Mexico markii madax bannaanida qaatana waxay ahayd gobol Mexico ka tirsan ayay ahayd wey dabadeed waxaa dhacay dagaal weyne u dhaxeeya Mareykanka iyo Mexico ayaa wuxuu bilowday Abriil 25keedii 1846 wuxuu socday February 2deedii 1848 buu soo dhamaaday waxa ku guuleystay Mareykanka waa la jabiyay hadiiba idin leeyahay Mexico heshiis baa khasab lagaga saxiixay ilaa wada la jabiyay moogta sidii loo jabiyay hadiiba Japan iyo Jarmalka oo kale dagaalka labaad adduunka ayaa loo jabiyay dalka Mexico waxa laga saxiixay xoog inuu Mareykanka u saxiixo California, Nevada, Utah, Colorado, New Mexico, Arizona shantaasaa laga saxiixay lixdaa gobol oo gobolada galbeedka hadda xiga ah dhammaantood Mareykanka la wareego xoog baa lagaga qabsaday waxaana deganaa dad Mexican oo Hispaniga meesha deganaa wala way degan yihiin qaarkood sidaas la mid ah sanadkii 1800 hadiiba idin leeyahay 36 Mareykanku wuxuu ka shaqeeyay inuu ka gooyo gobolka Texas oo hore uga tirsanaa dalka Mexico in laga gooyo kooxuu ku kiciyay dad buu soo galiyay waxa weeye rabshadu abuuray gobolkii buu ka gooyay xoog buu kaga gooyay ciidamo uu soo diray wuxuu yiri waa dawlad gaar ah oo Texas independence wax la yiraahdo ayaa lagu dhawaaqayo dawlad gaar ah laga dhigay 1845 isaga la wareegay annexation buu ku sameeyay ilaa waa sidoo awal markii hore rabay dad cadaan la soo galiyay cadaanku waa hore ma deganaan jirin dhulka Mexico waxa la Texas ma deganaan jirin sidoo kale wuxuu xoog kaga qaaday 1821 gobolka Florida waxa xoog laga qaaday boqortooyadii Spain ba xoog u kaga qaatay ana heshiis iska xoog laakiin heshiis buu ka qaaday laakiin waa ka xoogay way 1803 Louisiana Barges wax la yiraahdo iyo gobolka Louisiana iyo gobollo fara badan oo gudaha ku jiro la isku oran jiray Louisiana la isku oran jiray territory ayuu xoog iyaga si macnaha wuxuu ka gatay Faransiisku ka gatay magaalada Los Angeles aad maqlayso waxa la asaasay 1771 waxana asaasay boqortooyadii hadiiba idin leeyahay Spain ay asaastay guriyada ugu horreeyay xilligaas laga dhisay 1556 bay qabsadeen horta laakiin xilligaas ay magaalo ka dhigeen gobolka California iyo gobolada aan idin sheegayo hadaad la socotaan magacyada fiiri Los Angeles ma xaga ka tib waa Hispanic magac Hispanic Los Angeles magac English ma waa magac Hispanic way San Francisco وفيرسو واسباني ومجا اسبانيا سان جويس سان دييغو سان مونيكو سانتا كالاريتا مجاعيدا markaad u fiirsato oo dhan gobolka California magacyada boqolkiiba 90 intii hadda qabsadeen dabcan magaalooyin cusub ay ka dhisteen magac Ingiriis waa jiraan kooban baa jira laakiin Sacramento magacyadaas oo dhan waa magacyaha Hispaniga Spanish way kasoo jeedaan luqadda Spanish waayo dhulkan waxa dhul dhaqan oo lagu nool yahay oo magaalooyin leh oo camiran oo la qabsaday la kala qabsaday lagu habsaday way hadaad maqasho Soomaalidu waxbay ku kala habsatay reer hebel baa magaalo ku habsaday maqal jirta waa tana California wada lagu habsaday way gobol Mareykanka cadaanka ay ku habsaday weeyo awalna ay lahaayeen dadka Hispaniga dadka hadda la tarxiilayo baa halkan asal ahaan u leh marka hadii macna dad dabcan waxa iyaga laftigooda waxay ka qabsadeen dadkii reer Indianiska bay ka qabsadeen laakiin magaalooyinka iyaga dhulka asaasay magaalooyinka aad arkayso oo California waaweyn Los Angeles San Diego San Joyce San Francisco Sacramento waxaasoo dhan magacyadu waa magacyo Hispaniga waxana asaasay oo la dadka Hispaniga dadka maanta la qaxinayo ama la tarxiilayo dhulka iska laha asalahan
waxay kaloo leeyihiin gobolka New Mexico arka magacaad ba ka garanaysa Mexico ka tirsanaa jira laga xogay Arizona iyaga laga xogay Colorado inteeda badan iyaga laga xogay Utah iyaga laga xogay Florida Isbaanishka iyagana lahaa Florida gobolka la yiraahdo magacyada u fiirsa Florida markaas fiirsa magacyada gobolka Miami iyo areadaas magacyada waa hatta meesha uu degan yahay ninka la yiraahdo oo hadda u guuray ninka la yiraahdo Trump Mar-a-Lago ma xagee waa Isbaanish magac Isbaanish meesha uu degan yahay magaceedu waa Isbaanish waxay cadaynaysaa dalka inay boobeen oo ku absadeen cadaan ku cadaynaysaa mushkiladda marka arrinkan way macnaha dal la boobay hadda macnaha meel la isku haysto anigu waa la isku haystaa oo Mexico sheeganaysa in mari laakiin dadka Isbaaniga waxay aaminsan yihiin magacyadeeba arkaanba dhulkoodii weeye bay aaminsan yihiin inay tahay dhulka awoowayaashooda deganaan jireen magaalooyinkii asaaseen bay aaminsan yihiin waana sida saxda marka hadii la wada tarxiilaya waa dhibaato yeelimaya inay ka dagaalamaan baa laga yaabaa oo meesha maxay xaaladdu fara ka baxdo gobolka California marka lagu leeyahay dhaqdhaqaaq waxa ka jira goosada dabcan mad banaanka u soo baxay maaha arrinkaasi ku saleysay macna waxay aaminsan yihiin gobolkan dadka degan oo Isbaaniga ah in gobolkoodii la qabsaday lagu habsay bay aaminsan yihiin xilliga marka maxaa dhacay dabcan xilliga wala istarxiil jiray dadkii intii badnayd oo Mexicaanka ah waa baxsadeen oo waa qaxeen oo markii dee la jabiyay ciidankoodii dawladoodii oo gobolka laga qabsaday laakiin dad baa ku haray laakiin muddooyinkii dambeeto markii Mareykanku uu dimuqraadi noqday meel la geli karo oo maxay dal waliba dimuqraadi bay sheegeen laakiin markii xaaladdu kala degeen oo wixii qarniga hadda ugu dambeeyay ayaa dadkii Isbaaniga ku soo noqday dadkii hore u lahaa dhulka iyo dad cusub oo ku soo noqday hadda waxa la hilaadinayaa gobolada aan idin sheegay badankood dadka ku nool majority waa Hispanic bay noqonayaan hadda noqon sanada soo socda kontonka sano soo socda Hispanic maxay koonfurta iyo oo dhinaca xigtay Alaska iyo maxay waxaan leeyahay meesha la yiraahdo Alaska ma Texas iyo gobolada kale oo galbeedka aan idin sheegay oo California ugu weynta waxa la hilaadinayaa dadku ku nool inay majority Hispanic noqdaan way sababtu waxa weeye dadka cadaanka ay aad uma tarmayaan waxa weeye iyagu xagga dhalmada waa yarta halka Hispanic ay aad u tarmayaan waana ku soo gurmayaan waa qaxootiga marka meeshan waxa weeye dadkii cadaanka ahaa oo hogaaminaya hadda hogaamiye u yahay ninka la Trump baa waxay aaminsan yihiin dadkii Hispaniga ahaa dalka weyna ka qaaday iyo soo galootiga kale laakiin Hispaniga ugu dar oo si daadkii ku soo jabay Mexico kaliya ma aha Latin America oo dhan baa soo jabtay meesha ku soo jabtay marka waxay aaminsan yihiin haddii idan leeyahay aynaan dadkan joojin soo galootiga ah inta joogtan aanan dhimin ama meeshaba ka wada saarin dalka weyna kala wareegayeen Hispanic baa dalka la wareegay oo dalku dib uu wuxuu ugu noqonayaa 1800 soo ahaan jiray oo Hispanic meesha haysan jiray marka mushkiladda taagan midda weeye oo waxa weeye la isku haya qodobka weeye muhiimka magaalooyinka kale oo khatarta ku jira waxa kamid ah magaalada la yiraahdo Minneapolis iyo guud ahaan gobolka Minnesota oo Soomaalida ku badan tahay dabcan Soomaalida kaliya ma dad badan oo soo galooti ayaa gobolka degan oo Laatinada ku jirto dadka Laatinada ah ama Hispanic ay ku jiraan ayaa degan marka gobolkaana khatar baa dul saaran maalin dhaweyd ciidamada ICE waa loo diray oo dad bay ka soo qabteen magaalada waxay galeen hadii ay badan leeyahay Minneapolis xaafada kamid ah ayay galeen waatay ka hadlayeen xildhibaanada gobolkaas ay ku jirto Ilhaan Cumar waatay aadka arrinka u cambaareenayeen ay ka hadleen markay gobolkaas oo khatar buu ku jira gobolada wuxuu ku jira bartilmaameedka u ah ninka la yiraahdo Trump waa California oo magaalooyinka ugu waaweyn aad garanaysaa hadii Los Angeles hadda xaalku faraha ka baxay iyo San Francisco iyadana laga yaabo inay saas oo kale noqoto San Diego iyo magaalooyinka waaweyn oo gobolka ku yaala iyo Minneapolis meesha la yiraahdo
oo haddiiba eebba idin leeyahay iyadana soo galootina caan ku ah soomaalida iyo soo galootiga madow iyo kuwa east africa kenya bariga africa iyo adigu soo galootiga caan ku tahay gobolladaas marka waxay leeyihiin dabeecado uu ku bartilmaameedsanayo dhowr arrimood baa isugu biiray oo Trump ku bartilmaameedsanayo waa mare waxa ku badan dadka soo galootiga kow oo Trump uu bartilmaameedsanayo marka labaadna waxa gacanta ku haya oo maamula gobolladaas xisbiga dimuqraadiga qadiyo jeersi ku guuleystay waa macaaqil ama waa meelo uu ku xoogan yahay strong gobol xisbiga dimuqraadiga gobolladaasna bartilmaameed bay u yihiin xisbiga dimuqraadiga ay ku xoogan yahay dhinaca kale waxaa gobollada ku badan tiyaarkan siyaasiga ah oo la yiraahdo progressive macnaha la yiraahdo ayaa ku badan garabka bidaxa kuwaana wuu necab yahay marka sababo oo ku bartilmaameed baa jira marka New York magaalada la yiraahdo bartilmaameed Chicago magaalada la yiraahdo bartilmaameed baa u tahay Minneapolis Los Angeles San Francisco magaalooyinka noocaas meesha la yiraahdo magaalada la yiraahdo Atlanta uu aad u necab yahay waxaan leeyahay Atlanta Georgia gobolka maaha laakiin magaaladu aad u necab yahay gobolka waxa ku xoogan xisbiga jamhuuriga marka arrimihii macnaha ku bartilmaameedsan lahaa meeshay ku jiraan marka dabcan Soomaalidu waa inay arrinka ka digtoonaato Soomaalida ku nool gobolka Minnesota maalin dhaweyd waa ayaamo dhaweyd waxa la sheegay dhalinyaro fara badan waxta ku caan ku jiraan in la xirxiray baa la sheegay ICE ay qabatay oo hadda ay u xirxiran yihiin ayaa la sheegay dhowra marka Soomaalidu waa bartilmaameedyada koowaad bay ku jiraan oo Trump aad buu necab yahay sababaha uu ku nabcada waxa kamid ah Afrika inay ka yimaadeen Ilhaan Cumar Isayani adigu sababaa jira uu ku necab yahay Soomaalida marka soo galootiga dadka soo galootiga caalamka ugu badan bay Soomaalida ku jiraan marka la yiraahdo isirada soo galootiga marka waxa weeye ninka la yiraahdo Trump gobolkani bartilmaameed buu yahay maxaa dhici kara marka hadaan is weydiin horta dee dagaal sukay hadda lama gaarin Mareykankuna waa dawlad aad u weyn oo xoogan oo dee waxa weeye ciidamo leh oo hadda anigu macnaha jabhado iyo inay ka dilaacaan iyo arrinkaas waxa weeye arrin hadda aynu saadaalin karno maaha oo taxliilkeenu sheegayo macnaha jabhado hubeysan Mareykanka inay ka soo baxaan film iyo hadda laakiin waxa dhacaya dhowr arrimood baan isleeyahay baa dhacaya waa mare horta dadka Mareykanka ay u kala qaybsan yahay labada xisbi oo xisbiga dimuqraadiga ah iyo xisbiga jamhuuriga kow garabka midig iyo garabka bidix labo labada xisbi ku kala badan yihiin soo galooti iyo cadaan hadda waxaan arkaa marka fault line kala macnaha waxaan hadda arkaa iyo muuqda dadka cadaanka ah iyo dadka Hisbaaniga la yiraahdo in colaade dhex mari doonto macnaha waa dagaalamayaan oo isdilayaan ma waxaan ka hadlaynaa laakiin nacayb ba abuurmaya nacayb u dhaxaya dadka Hisbaaniga ah oo kuwa badan ay dad macnaha dalka sharci ku leh oo degan yihiin oo macnaha laga yaabo kaabku inay deganaan dalka macnaha dadka Hisbaaniga ah ama Laatinadu waxay u arki doonaan in si gaar ah loo bartilmaameedsanayo cadaanku bartilmaameedsanayo marka halka waxa ka dhalan doonta cadaawad u dhaxaysa dadka cadaanka ah iyo dadka Hisbaaniga ah oo de gacan ka hadal isu bedeli karta Hisbaaniguna dad yar ma ilaa 50 milyan iyo ka badan baa dalka ku nool baa la sheegay oo Hisbaaniga taana ka badnayn marka dad yar ma waana codaya marka arrinkaasu hadduu arrinka colaadaas haday abuuranto khatar bay waxay ku tahay wada jirka dalka la yiraahdo Mareykanka waayo waa kutlad weyn oo asaasiya oo dalka waxa weeye degan weeye oo iyagu de waxayna sheeganayaan waxayna iyagu dalka aaminsan yihiin dadka leeyahay soo galooto way soo arkaan dalka inay leeyihiin oo ka soo horeeyeen cadaan angala soksooka bay aaminsan yihiin waa sida saxda gaar ahaan gobolada aan soo sheegay iyagu inay leeyihiin bay aaminsan yihiin arrinkaas marka aan isleeyahay khatar buu gelin karaa dalka Mareykanka hadduu abuurmo hadday dhacdo colaad u dhaxaysa dadka cadaanka ah iyo dadka Hisbaaniga ah way isu dhow yihiin tirada ma dalka kuma kala badnaa sida muuqata haddii marka colaad noocaas dhacdo waxa weeye
dee waxa weeye laba dhinac oo dalkii ku xoogan oo isqabtay bay noqonaya kolley anigu waxaan isleeyahay dee maraykanku waa dal macnaha horumarsan oo dad cuqalaana waa joogaan baan isleeyahayo xaaladdu inay faraha ka baxdo filim mayno oo dagaal sokeeye arinku gaaro laakiin Trump iyo kooxdiisu iyagu dhibaato way geysan karaan way qaabka hadda u dhaqmayaan ba arkaysa dadkii waxay ku tilmaamayaan argaxiso waxay ku tilmaamayaan dambiilayaal hala laayo hala soo qabto dadka shacabka bay leeyihiin Trump meel uu ku jiro waa laga fili karaa in xaaladdu faraha ka baxdo way ninkan tarooran ma hada waxaad arkaysaa ninkay saaxiibka ahaa inuu isugu dhawaayeen Elon Musk bay isku dhaceen waxba islama harayaan mid midka loo caay marka Trump caaqil qof caaqila laga xisaabtamay kuwa isaga la shaqeeyana waa saas oo kale wasiirkiisa difaaca iyo gabadha u qaabilsan xagga wasaaradda cadaaladda u haysay waa dad noocaas oo xag jiriina weey marka iyagu waxay soo arkaan dad ka cadaanka ee dalka inay leeyihiin cid kaleba ka xigaan dadka kalena ay dad soo galootiya in lala dagaalamo dalka xoog loo adeegsado marka hadda wuxuu adeegsanaya excessive power xoog xad dhaaf ah buu shacabka u adeegsanaya dadka wuu qabanaya guryaha loogu dhacaya macnaha wax aan Mareykanka laga malayn karin dad guryaha loogu daadanayo oo sharci ah oo waxa la jira system in la maro way qofka waaran loo soo gooyo oo tartiib dadka reer galbeedka ku nool way garanaya xataa haddii maxay leeyihiin ay qofku la roomo looga yeerayo meesha la yiraahdo saldhigyada iyo booliska uu doonayo qofka qaab loogu yimaada jira laakiin halka way iska weerarayaan bas waxaan moodaa dawladaha dunida saddexaad oo kale guriyada baa la isaga dhacaya arrin markii khatar badan way qodobkaasuna waa jira kolley waxaan isleeyahay arrinkan mushkiladan hadda abuurantay waxaan isleeyahay anigu haddii Trump iyo kooxdiisu sidaa ku sii socdaan meelo badan oo dalka ka mid ah baa qarxi doona oo California kaliya meelo badan oo ka mid ah gobolka ugu sharaxana oo aan isleeyahay inuu qarxo waa gobolka Minnesota weey iyo magaalada hadii ay badan leeyahay Minneapolis saasoo kale gobolka Illinois oo Chicago ku taal gobolkaasuna wuxuu u sharaxan yahay inuu qarxo New York iyo aagaasuna waa aaga iyadana qarxi kara markay meelo waxa jira u nugul inuu Trump weeraro dadkuna marka ay mudaharaad dhigaan mudaharaadyada waxa dhici karaba in dadka Trump ka soo horjeedo xisbiga dimuqraadiga waxa dadka cadaanka ay ku jiraan oo liberals kuwa isku sheegay iyo garabka bidixi in mudaharaadku inta ka balaarto leeyahay Trump dadkii shacabka uu leeyahay wuxuu noqday dictator qaab noocaas in loo wajahno waa dhici karta iyadna marka balisheenu ku haynayna xaalad adag weeye dadka Soomaalida waxaan u rajaynaynaa dalka ku nool inay taxadaraan ayaan kula talinaynaa insha Allah waxaan u rajaynaynaa in Ilaahay ka badbaadiyo Trump iyo dhagarihiisa dadka Soomaaliyeed oo ama kuwa sharciga haysta aadeen ama kuwa hadda sharci sugayaasha oo dalka Mareykanka ku nool waxaan Ilaahay uga rajaynaynaa in Ilaahay Trump iyo dhagarihiisa ka badbaadiyo inay digtoonaadaan waa u soo jeedinaynaa xaaladan ishaan ku hayn doona waynu ka hadli doona wixii hadba soo kordha oo xaaladaas ka sii daraysa dalka Mareykanka la xiriira waa salaamti